adeeg hufan degdegsiinyo iyo waxyaabo badan oo ay kaga horeyso shirkadaha kale meel walba oo ay eheladaada iyo caa'iladaadu joogaan horyaal online waa ay kuu gaarsiinaysaa horyaal online waxyaabaha kale ay bulshada ugu talagashay waxaa ka mid ah sarifka lacagaha haddii aad doonaysid in aad lacago qalaad u qaadatid meel ka baxsan waddankan UK waxay kuu sahlaysaa qaabka aad ku heli karto dhammaan lacagaha aad u baahan tahay xawaalada horyaal online waa xawaalad dadka ka adeegtaa ay si weyn uga heleen xarumaheedu waxa ay ku yaalaan Paddington iyo Finsbury Park magaalada London haddaba ha moogaanin xawaalada horyaal online waxaad kala xiriiri kartaa website-kooda horyaaluk.com iyo telefoonada number ee shaashada ku qoran horyaal online bishaaro bulshada aduunkuna bilqeyrnaha meel kastoo aad joogtaan waa xawaaladii London Express oo laamaheedu ku baahsanayeen dunida dacaladeeda London Express waa laga maarmaan London Express ma lugoyso aadmiga oo London Express waa lagu ladnaaday meel kastoo ay bulshada joogtada London Express qorshadeedu waxa uu yahay ku dirso oo ku qaado 3 daqiiqo iyo ka yar xawaalada London Express waxay uga duwan tahay xawaaladaha kale iyadoo lacagaha gaarsiisa guri kasta iyo goob kasta iyo geedka hoostiisa meel walba dadku ay joogaan London Express waxay ku shaqeysaa text message-ka iyadoo waliba dad badan oo lacagaha ku dirsaday London Express meel kastoo adduunyada ah ay ku liibaaneen libintiina ay haleeleen ee bulshada meel kastoo joogtaan maxaa idin diiday si aad libinta u haleeshaan inaad la xiriirtaan xawaalada London Express London Express London Express بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة الكسو دوالا وركا عالم كودين كجينا كالسن تي في ستوديو سامجالة لندن قلبنا وركا كنا نوحى كمدا مدحوينها ماموكا حبيبية حيبا يا مانتا كنا واقعي قار كمدا قريه سوزيردا كدا مركي معلوم ودن بيه ورتشير لها قرها بارمان كي ماموكا سي iskaashatada gaadiidnimada ee ka howlgasha magaalada Muqdisho ayaa walaac ka muujiyay wadooyinka xiran qaar ka mid ah magaalada Muqdisho iyagoo sheegay in arrintaasi ay dhibaato ku tahay gaadiidka isaga kala guusha wadooyinka magaalada Muqdisho qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya waxaa si weyn looga dareemayaa diyaargarowga Ciidul Fidriga iyadoo maalmo quraan ay harsan tahay maalinta Ciida waddanka socda maamulka Jubbaland oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi ayaa maanta u ambaxay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia halkaas oo la filayo in kulan kula qaadan doono madax ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ka wada hadli doonaan arrimo ku saabsan maamulka Jubbaland intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkarona haatanna warkii oo fidsan madaxweynaha maamulka xibin iyo xeeb ayaa ku dhawaaqay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada kadib markii maalmihii dambeeyay waqtashiyo la lahaa golaha baarlamaanka ee maamulkaasi iyo qeybaha kala duwanaayaasha dhaqanka faafahinta warkan waxaa magaalada Cadaadin nooga soo diray wariyahayaga halkaasi nooga soo warama Daahir Farax kadib digreeta ka soo baxday madaxweynaha maamul goboleedka xibin iyo xeeb ayaa maanta waxa uu ku dhawaaqay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada madaxweynaha maamul goboleedka xibin iyo xeeb Cabdullaahi Cali Maxamed Baarleex ayaa maanta waxa uu si toos ugu dhawaaqay 3 wasaaradood oo ka mid ah wasaaradaha maamul goboleedka xibin iyo xeeb waxa uu sheegay madaxweynuhu inaysan jirin wax caqabad oo xilligan hortaagan in dhammaanba lagu dhawaaqo golaha wasiirada balse ay jiraan oo kaliya wada tashi iyo ka arrinsi sidii loo soo xuli lahaa wasiiro tayo leh Master Baarleex madaxweynaha maamul goboleedka xibin iyo xeeb ayaa warbaahintu akhriyay tirada wasiirada iyo wasaaradaha uu soo kala magacaabay markaan arkay qodobka 25aad faraqa saddexaad xeer hoosaadka xibin iyo xeeb markaan arkay baahida loo qabo in si degdeg ah loo dhiso hay'adaha maamulka iyo dib u soo nooleynta adeegyada bulshada waxaan soo saaray wareegtadan qodobka koowaad magacaabista laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 5 August 2013 waxaa la magacaabay golihii wasiirada cusub ee maamulka xibin iyo xeeb waxaana ka mid ah 1 Qadar Maxamed Faarax
wasiirka amniga 2 cilmi kulani cali wasiirka badda 3 maxamed sahal cali cumar wasiirka maaliyadda sharciga wuxuu dhaqan gelayaa laga bilaabo maanta oo ay bishu tahay 5 August waxaana lagu faafin doonaa warbaahinta cid kasta waxaa waajib ku ah inay dhowrto dhaqan gelisana wareegtadan. dhinaca kale madaxweynaha maamul goboleedka Axmed iyo Xeeb Cabdullaahi Cali Maxamed Baarleex ayaa waxa uu sheegay in wasaaradaha ka dhiman xukuumaddiisa oo dhawaan soo dhisi doono waxaana uu dhammaan u mahad celiyay shacabka Axmed iyo Xeeb oo sheegay inay si wanaagsan ula shaqeeyeen. waxa qabada ma jiraan wada hadal socda insha Allah waxaan jecelahay in waqtiga soo socda inoo dhamaado. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan bulshada Axmed iyo Xeeb meel walba ay joogaan sidii kartida lahayd oo ay ugu sabreen in la dhiso golaha wasiirada iyo culaysadii badnaa ee soo maray. si kastaba ha ahaatee ku dhawaaqitaanka madaxweynaha maamulka Axmed iyo Xeeb oo maanta ku dhawaaqay qaar ka mid ah gurihiisa wasiirada ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli muddooyinkii dambe hadalhaynta ugu badan deegaanada maamulka Axmed iyo Xeeb ay ahayd xilliga lagu dhawaaqi doono golaha wasiirada. Daahir Faarax Axmed, TV-ga Kalsan, xarunta madaxtooyada Cadaado. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolka Hiiraan ayaa maanta dil toogasho ku xukuntay nin eedeysanaha oo ku tilmaameen inuu hore dil uga fuliyay magaaladaasi Beledweyne iyagoo ku eedeeyay in ninkaasi uu dilay guddoomiye hore odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan. faafahinta warkan waxaa magaalada Beledweyne nooga soo diray wariyahayaga Cabdirasaaq Al-Cadaala. mukhtaar xasan maxamed oo ahaa shakhsigii dilay gudoomiyihii golaha odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan Sheekh Maxamed Xuseen Magacad taariikhdu markay ee 27 bishii 11 sanadkii 2012 ayaa xukunkiisa dilka waxa uu maanta ka dhacay fagaaraha Lamagala ee magaalada Beledweyne. goobta lagu dilayay mukhtaar xasan maxamed waxaa ku sugnaa boqolaal qofood oo shacab oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Beledweyne ehelada gudoomiyihii golaha odayaasha dhaqanka iyo waliba maamulka gobolka Hiiraan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya taliska booliiska gobolka iyo waliba kan degmada Beledweyne. markii uu dhacay xukunka mukhtaar xasan maxamed kadib ayaa waxaynu la hadalnay taliyaha qaybta booliiska gobolka Korneyl Isaaq Cali Cabdulle waxaana ka sheekeeyay xukunkan dilka ee lagu fuliyay mukhtaar xasan maxamed oo dilay gudoomiyihii golaha odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan. maanta oo taariikhdu tahay shantii bishii 8 waxaa xukun dila lagu fuliyay gacan ku dhiigle mukhtaar xasan maxamed madaxaawo macalimiintiisa 80 jir ah ku dhashay degan Beledweyne wuxuu si dareen iskaashatada gaadiidleyda gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaa walaac ka muujiyay xirnaanshaha qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho iyagoo sheegay in dhibaatooyin ay ku qabaan gaadiidka qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. faafahinta warkan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Cabdirasaaq Aadan Qoslaaye. kadib kulan ballaaran oo ay maanta isugu yimaadeen guddiga gaadiidka baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo guddiga iskaashatada gaadiidka gobolka Banaadir ayaa maanta waxa uu ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho. kulankaasi ayaa waxaa diiradda lagu saarayay sidii loo furi lahaa wadooyinka iminka xirxiran iyadana ay baaqiya u direen mas'uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya. ugu horreyn kulankaasi ayaa waxaa ka hadlay agaasimaha iskaashatada gaadiidka gobolka Banaadir Nuur Sheekh Cali kaasi oo sharaxaad ka bixiyay boostooyinka ku yaala gudaha magaalada Muqdisho oo qaarkood ay dhisteen shakhsiyaad Soomaali ah. boostooyinkii gobolka Banaadir mar hore waa sheegnay dowladda dhexna waa u sheegnay maamulka gobolka Banaadirna waa kala hadalnay. boostooyinkii gaadiidka ay ka shaqayn jireen maanta boostoojo lama hayo. wax boostoojo oo gaadiidkii ay ka raranayaan mise ay dadka qaadayaan mise dadka ay ku dejinayaan haddana iskaashatada gaadiidka waxaan u sheegaynaa dowladda dhexe iyo gobolkaba in maanta wax boostoojo oo gaadiidka laga rari karo mise dadka ku daadin karaan mise ka qaadi karaan inaysan jirin. sidoo kale kulankaasi ayaa waxaa isna ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka iskaashatada gaadiidka gobolka Banaadir waxa uuna sheegay in gaadiidka gobolka Banaadir ay dhibaato ku qabaan isticmaalka wadooyinka qaarkood oo ay dowladda u xirxirtay sababo la xiriira dhinaca ammaanka. dhibaato badan ayaa soo korortay isu socodkii dadweynihiia kala yaraaday shaki badan ayaa jira markaa sidaas daraaddeed jidadka xirxiran ee hadda sida Barsenbiya ka soo qaad wadada tarbuuka way xiran tahay waxaa haray isu socodka gaadiid marka loo marayo ama jid caddo uu ka lexdo dhibaato badan uu la kulmaya marka taasi waxay dhalinaysaa in uu istaago isu socodkii xaafadaha gudahood. waxaa kaloo xiran inta u dhaxaysa elboorka ilaa maaragtay number 4 aad ku timaado waxaa wada safan dhagxaan wax ma waardiyeyse askarta wax waardiyeeya laamiga ha yimaadaan
laamiga maaragtay baabuurkii hala joojiyo hala baaro kadibna hala fasaxo weligeena waa ku baaqi jirnay laamiga baabuurka hala istaajiyo hala baaro hala fasaxo gabagabadii kulankaasi ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha guddiga gaadiidka baarlamaanka federaalka Soomaaliya xildhibaan Cusmaan Aadan Dhuugow waxaan moodaa in ayadan ay ku soo aroortay carwada xaggeeda wadooyinkeeda in la aado oo dadkii socodkooda iyo mashaakilkaas kale u taagan yahay iyadoo oo aanan wax balaana oo qorshe ah oo tilmaama aan dhicin oo naloo tilmaamo wadooyinka xaafadaha aad dareemaysaa in mataqaanaa dhagaxyo waaweyn la saaray oo la wada xiray oo meel hadda lasaga soconayo midna aan jirin aad baan kulleyba tilmaanta ula qabnaa guddiga iskaashatooyinka maanta fadhigaan aan kulleyba aan la soo qayb galay loona baahan yahay in la maqlo loona dhooga muglaado waxa ay wakiilada ka yihiin ayagana daba yaallo waa shacbweynihi gaadiidka ah dhan wakiiladoodii ayaga ah cabdirasaaq aadan quslaye kasab t v magaalada muqdisho wafdi ka socda maamulka Jubbaland oo hogaamiye madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi ayaa maanta u ambaxay magaalada Addis Ababa xarunta dalkaasi Ethiopia halkaas oo la qorsheynayo in kulan ay kula qaataan mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ka wada hadli doona arrimo ku saabsan maamulkaasi. Faafahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyahayaga halkaasi nooga soo warama. wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Generaal Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa maanta ka duulay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo iyadoona wafdiga uu ku sii jeedo magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. wafdiga uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka ayaa la filayaa in magaalada Addis Ababa uu ka qayb galo wajigii labaad ee shir halkaasi uga socday dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. mas'uulkan oo warbaahinta kula hadlay garoonka ayaa sheegay inuu ka qayb gali doono shir halkaasi ku dhex mari doona dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland isagoona xusay in shirkani uu yahay mid la doonayo in lagu soo afjaro khilaaf daba dheeraaday oo u dhaxeeyay dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. dhinaca kale waxaa maanta garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ka soo degtay diyaarad taasoo siday ku dhawaad ilaa 50 askari oo ka mid ahayd dhaawacyada askartii ku waxyeelowday dagaaladii ka dhacay Kismaayo. dhaawacyada ayaa markii ay ka soo degeen garoonka waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin sare oo ka tirsan maamulka Jubbaland. madaxweynaha maamulka Sheekh Axmed Madoobe oo halkaasi ka hadlay ayaa uga mahadceliyay maamul goboleedka Puntland daweynta askartaasi oo uu xusay in markii laga kaxeynayay Kismaayo ay xaaladoodu ahayd mid aad u liidata. xasan nuur maxamed Talsan TV Kismaayo. qaar ka mid ah abwaaninta iyo fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay qorsheynayaan in ciidan ay ugu talagaleen oo soo bandhigaan munaasabado iyo barnaamijyo kala duwan ay ugu talagaleen inay kala qayb qaataan dadweynaha ciidaysanaya. faafahinta warkani waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdishakuur Shakra. xilli aan ku guda jirno gabagabada bisha barakaysan ee Ramadaan ayaa waxaa qaar ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed ay sheegeen in ay isku diyaarinayaan sidii ay farxad ugu ciidi lahaayeen dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. fanaaniinta ayaa waxay sheegeen in muhiimadda ugu weyn ay tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo sidii dadka oo dhan ugu dadaali lahaayeen horumarka Soomaaliya. abwaanada iyo fanaaniinta Soomaaliyeed ayaa waxay isku raaceen in loo baahan yahay horumarinta jiilka cusub ee Soomaaliyeed iyo sidoo kale nabadka islaxda Soomaaliya oo dhan. anagu waxaan nahay fanaaniinta qaranka ummadda Soomaaliyeed anaga hal bay noo tahay hal qoys bay noo tahay hal midaysan bay noo tahay wixii cadow ku ah cadow noo ah wixii kala diraya cadow noo ah wixii isku keenaya walaal noo ah. ilaahay waxaan ka rajeynayaa Ramadaan waa cibaadadiisa baa lagu jiraa. ilaahay Ramadaanka fadligiisa ummadda Soomaaliyeed quluubteeda Allah isku dhammaan muslimiinta adduunka oo dhan inaan kula ciidno farxad gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. waxa aan rajeynaynaa in aan u soo bandhigno waxyaabo badan oo ay nagu ciidaan si farxadda ciidda aan uga qayb qaadano. baaqa ka soo yaray fanaaniinta Soomaaliyeed iyo abwaanada ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyadoo dadweynaha Soomaaliyeed ay isku diyaarinayaan Ciidul Fitriga oo ay naga xigto maalmo kooban oo kaliya
islamarkaasina dhammaan ummadda soomaaliyeed ay rajeynayaan in fanaaniintu ay soo bandhigaan waxyaabo muhiim ah oo ay ku qayb qaadanayaan wacyigelinta bulshada. Soomaaliya markay nabadda ahayd waxaa dadka oo dhan ay isugu tegi jireen National Theatre oo ahayd hooygii fanka Soomaaliyeed. haddana dib u habeyn ballaaran lagu sameeyey laakiin dadku weli aanay ku dhiiran inay gudihiisa tagaan. Cabdishakuur Xuseen Maxamed, Cabdishakuur Shakra, Kalson TV, Muqdisho. diyaargarowga ciidul fidriga ayaa si weyn looga dareemayaa goobo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya iyadoo suuqyada mashquul aad u fara badan ay ka muuqdaan kuwaasi oo dadka ugu diyaargaroobayaan maalmaha ciidda. magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxaa si weyn looga dareemayaa diyaargarowga ciidda iyadoo sidoo kale magaalada Garowe xarunta maamulka Puntland ay sidoo kale ka soconayaan diyaargarowga ciidda. wariyaasheena noogu sugan gobollada dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo Garowe ayaa faahfaahinta warkan ku eegaya diyaargarowga ciidda suuqyada magaalooyinka ay ku sugan yihiin. maalmo hore ay ka harsan yihiin bisha barakaysan ee Ramadaan foodan nagu soo hayso maalmaha ciidul fidriga ayaa waxaa suuqyada waaweyn ee magaalada Muqdisho laga dareemayaa reeraha xoogan oo dhanka u diyaargarowga ciidul fidriga oo ay sameynayaan dadka ku nool magaalada Muqdisho. waxaana suuqyada lagu arkayaa waalidiin carruurtooda gacmaha haysta oo u soo dukaamaysi tegay suuqyada magaalada Muqdisho inkastoo ay jiraan dadka qaarkood ku nool magaalada Muqdisho aan awoodin in dukaamaysigaasi ay dadka reer Muqdisho intooda badan sameynayaan ay ka qayb qaataan. waxaana qaybo ka mid ah dadka reer Muqdisho ee u soo dukaamaysi tegay suuqyada magaalada Muqdisho inkastoo ay jiraan in dadka intooda badan ay soo dukaamaysi tagaan haddana waxay tilmaameen inay jiraan waxyaabo fara badan oo ganacsadu ay qaaliyeeyeen dadkana aanay saamaxaynin inay iibsadaan. in badan markii qaaliya noqdeen sida goonooyinkii dharkii carruurta dharkii ragga dharkii dumarka dhammaan sidee kastoo ay badan yihiin dharka dumarkii dharka carruurta inay aad u qaaliyeeyeen. ciidan waxay fiicanta laakiin ciidan nadiif waa ciidan wax walba mar walba raqiis kulli ciidan hataa qabow tartiibka ciidii hore kuleedahay laakiin ciidan nadiif wallah bilaa baraaqa ku jirna. ganacsatada ayaa iyagoo dhankooda waxay sheegeen inaanay jirin wax la qaaliyeeyey islamarkaana agabka la iibsan lahaa ee ciidda loogu talagalay uu yahay mid raqiis ah hase haatee duruufaha haysta dadka reer Muqdisho intooda badan aanay u saamaxaynin inay ka qayb qaataan taasina sabab looga dhigay dad lacago fara badan haysta oo dalka dibadiisa ka soo laabtay caqabada ku noqday dadkii danta yaraa ee gudaha ku noolaa. dib u furmay dad cusub ayaa South Africa laga imaaday China laga imaaday India laga imaaday meel walba dadkii jaamacada Malaysia dadkii soo qalan jibi ay markaan fiirinaan ala waxay rabaan oo fashion ugu dinaan siinaan ala wax qaale ma jiro dadka si marba si ba umadan dar fashion ba jiro xamil abdul fashion ka ubayan wala qata arshad maxamed caliire TV Kalson magaalada Muqdisho. iyadoo maalmo qurayna ka xigaan waqtiga ciidul fidriga ayaa magaalada Garowe xarunta dawladda Puntland waxaa ka socda diyaar garow xoog leh oo bulshada qaybaheeda kala gedisan ugu jiraan ciidul fidriga. maanta TV-ga caalamiga ee Kalson wuxuu booqasho gaaban ku tagay suuqyada iyo goobaha ganacsiga ee magaalada Garowe waxaana ka muuqanaysay saansaan farxadeed oo bulshada reer Garowe ugu jiraan sidii maalinta ciidda ay u weyneyn lahaayeen iyagoo iibsanaya dhammaan agabka ay ugu talagaleen inay maalintaasi ciidul fidriga ku damaasho. waxaana waraysiyo kala duwan la yeelanay qaar ka mid ah ganacsatada ku dhaqan suuqyada ganacsiga ee magaalada Garowe iyagoo dhammaantood shaaciyay in suuqyada Garowe ay ka socdaan xawaare xoog leh oo bulshadu u godanayso dhanka dharka iyo agabyada carruurtu ku ciyaarto wow ay jiraan sarabkac dhanka sicirka ah taasoo ay ganacsatada ku macnaysay arrin xiliyadan oo kale iska caadiya maadaama ay fursad ganacsatada soo marta hal mar ay tahay xiliyada ciidaha oo kale. محمد أحمد عروة لمدينة إيدان وإيدان سميسا وفي هراء كوي هراء كفيعا وأي واحد دريم سوق يرقاقا يحالة السوق ولا يعني وتذكر الحمد لله رب العالمين تذكر سيد محمد أنو حوالي تذكر كإل بحي وإيدان أفضلين إيدا قدابة تذكر أيدي الإسلاميين ولما تذكر أيدي السميين صادرت ذا يكنتي إن تذكر وألابتا وآدو كثير حتى سوق آدو سري ولا أردت أن الآن كعضو أنا أذكر كتبناي وأيضا برامج بدن سميناي waxaan sameynay barnaamijyo banaanka ah oo aan ugu talagalay dadka danyarta inay ka faa'iideystaan oo run ahaantii hadirtaa dadka aan ugu amaaneen waanu jibinay waxaa jira dhar kale oo aan turka ka keenay oo iyaguna quality leh oo gudaha ugu talagalay dadku sidii uga wadaan halba aan iyagu u talagaltaan. waxaan ugu ka salaamay ummadda Soomaaliyeed meel kasta dunida baaxeeda ka joogtay waxa afka Soomaaliga ku hadla diyaar garowga ciidda haddaan ka hadlana si wanaagsan baan u diyaar garownay
waa maalintii farxadda muslimiinta weeye inta soontay intaana soomin kuma jirto ciidan si wanaagsan baa ugu diyaargarownay carruurda way kala socotaa maasha allah dad badan baa inoo yimi dhar ciid gadanaya markaa aragto carruurtooda gacmaha ku sita aad baan u faraxsannahay carruurda way inoo kala socotaa maasha allah taa horta way jidhaa run weeye maalin ciid weeye carwooyinkan waa ogtahay maalinta ciidda keliya jaaniska haystaan ciidul adxaa iyo ciidul fitri labadaas keliya jaaniska haystaan shaygii la gada jiray $18 haddii la gada jiray dabcan 20 wuu noqonayaa waa maalin farxadeed weeye waxaan doonaynaa ciid wanaagsan waxaan ku jirnaa shaqadii ciidda iyo ciidii si fiican ugu diyaargarownay dadkana waxaan u keenay anagu alaab kala duwan sida alaabta raqiiska aan ugu talagalay in dadka danyarta ka faa'iidaystaan iyo alaabta kale caadiga ah dadka malixaadka gadan kale dadka caadiga ah labadaas ka shaqeynaa xagga ciidda dadka si fiican ugu diyaargarownay dhanka kale waxaan dareenkooda muujinaya qaar ka mid ah bulshada iyagu iibsaday agabyadii ay ku ciidi lahaayeen maalinta mugga iyo miisaanka ku leh dhammaan muslimiinta caalamka. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ana xakan muusu xasaaway garaway ciideedu hadiisa waa haykal faay saawin hadda waxa qaatay dharkay ugu fiicnaa haddana magaaladu ciidii ayay soo dhaweynaysaa. tan iyo marka la gaaro 10ka dambe ee bisha barakaysan ee Ramadaan waxaa suuqyada ganacsiga gaar ahaan goobaha dharka iyo waxyaabaha carruurta ku ciyaarta lagu gado ay galaan mashquul xoog leh si ay u helaan agab tayo leh oo ay maalintaasi farxadooda ku muujiyaan. waxaa haatan mashquul xoog leh lagu arkayaa wadooyinka iyo goobaha ganacsiga ee xarunta dawladda Puntland ee Garowe. Cabdirasaaq Maxamed Xayir, Cabdirasaaq Horasti, Kasan TV, Garowe. tababar qaatay muddo 4 bilo ayaa waxaa magaalada Kampala loogu soo gabagabeeyay saraakiil sarsare iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo tababarkan ay sameeyeen saraakiil sarsare oo ka tirsan midowga Yurub. ciidamadan ayaa la sheegay inay wax ka bedeli doonaan xaaladda amniga dalka Soomaaliya. waa ka mid ka mid ah saraakiishii lagu tababaray waddankan Uganda oo ka warbixinaya halkan waxaa diyaar ku ah ciidan Soomaaliyeed saraakiil xigooda askari soo jira kuwaasoo ku dhamaystay koorso 4 bilooda Uganda koorsadaas oo bixinayeen macallimiin ka socda midowga Yurub waxayna kala ahaayeen 3 qaybood halkan waxay waasiin waxay bayiin saraakiil sarsare waxay baranayeen cilmiga waasiin oo ah cilmi aad u ballaaran kaasoo ah xiriirinta ciidamada hay'adaha iyo dowladda kala dhammaan gruubka labaad waa koox commander waa taliyahorin waxa loo tababaray ilaa taliyahorin ilaa taliyahorin waxa macluumaad baa laga siiyey ilaa taliya guuto taliyahood taliyaga dhammaan gobolka saddexaad wuxuu ahaa military police waxa loo tababaray VID ilaalinta madaxa sare ka hortagga mudaharadyada ka gudubka xadhigyada ka hortagga anti-terrorismka ama argagixisada dhammaan tababarka way dhamaysteen. ma aha markii ugu horeysay ciidamo iyo saraakiil ka socda dalka Soomaaliya lagu tababaro waddankan Uganda. Igla Saalax aan telefishinka caalamiga ee Kalsan TV Kampala. deeqdani lacagta ee hay'adda culimada albayaan xarunteeda magaalada Johannesburg ay u qaybisay qoysaska agoomanka oo gaaraya ilaa 24 qoys kuwa waalidkood lagu dilay dalkani Koonfur Afrika. Carruurtani loo qaybiyay deeqda lacagta ayaa hay'addu sheegtay inay ugu talagashay inay ku ciidaan maadaama ay foodan ugu soo hayso ciidul fidriga. hay'adda ayaa sidoo kale sheegtay in sanad waliba ay deeqdani lacagta u qaybiyaan qoysaska agoomanka ee ku nool dalkani South Africa sida uu TV-ga Kalsan u sheegay xogayaha guud culimada albayaan Sheekh Axmed. talagalay xaqabiidka diyaarka agoonta runtii sanadada faraha badan ay arkayseen carruurtii awliyaasha dalka lagu geeriyooday hadda kahor aan marsu sheegnay ilaahi subxaana watacaala intii baxsatay rabbi subxaana watacaala haka ajar ka siiyo arrintanna waa arrin ilaa iyo laga soo bilaabo 2007 sida ay sheegtay walaasheen Nuura oo maaragtay ah iyadu qaabilsan qaybta agoonta u qaabilsan majliska laga soo bilaabo 2007 ilaa hadda la wadaa bil walbana waxaa la siiyaa ciid kastana waxbaa la siiyaa insha Allah tacaala ilaahi subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa in miisaanka xasanaadku u saaro cid kasta oo ka qayb qaadata bilaha iyo cid kasta oo ka qayb qaadata waqtiga ciidaha oo awlaadaas laga farxiyo maadaama abayaashooda ay naga hooseeyaan. sidoo kale waxaa Kalsan TV la hadlay qaar ka mid ah waalidiinta carruurtooda deeqda lacagta la guddoonsiiyay maanta. lacagta waa lacag la siiyaan albayaan iyo dadka businesska kuwaas Johannesburg
waana lacag loogu talagaleen agoomaha lacagtaas agoomaha bil walba la siiyo anigana kusoo aada lacag 300 bishii halkan waxaan u imaanay anagoo soo doonay caawinaan ilmaha agoonta oo na caawiyaan albayaan madrasada albayaan كل أنا من قام جاب قوي مالك كان لك يا معاوية وحنا نحسن أنت شيخ أحمد داير يا نور أبي معاوية وأنا كم هسينا وطن صار أفريقيا السودان يحكي وحوي وطن في أمني سؤال نهاية وسطك حياتي رتيجة باش سوق حكى عن صومالي بعد ومبدلو الله لا يكشمنا إيمان والله إنك بملون 2007 كي bishii tobnaad waxaana ka sifay hooyadii oo ilmaha haysata ilmahaasna ay agoon yihiin oo aan balahayn kaligeed dhibaato fara badan bay kala kulantay ilmihii korintiisii iyo hayntiisii iskuul geyntiisii runtii waa arrin runtii aad u culus marka waxaan u sameynay sanduuq maxay ahayd laga caawiyo waxaana bilaabay gabdhaha dumarka muslimaadka ee jooga Johannesburg dad yar baa bilaabay oo 20 dhowr ah ayaa bilaabay markii ugu horeysay si kastaba ahaatee maahan markii ugu horeysay hay'adda ay ku boobeen culimada albayaan ay deeq lacag u qaybiyaan qoysas agooman ay ku nool dalkani Koonfur Afrika Cabdiqani Axmed Tidoon Kalsan TV Koonfur Afrika dowladda markana xubinta ciyaaraha waxaanu ku soo qaadan doonaa hay'ad lagu magacaabo horumarinta bulshada oo fadhigeedu yahay magaalada London ayaa waxa ay soo gabagabaysay koob ugu talagashay bisha barakeysan ee Ramadaan kaasoo markaas ay ka qayb galayaan kooxo kala duwan oo Soomaali ah oo fadhigoodu yahay magaalada London warkaasi waxaa inoo diyaariyay wariyahayaga Cali Aar hay'adda lagu magacaabo horumarinta bulshada ee saldhigeedu yahay magaalada London ayaa maanta u qabatay dhalinyaro Soomaaliyeed tartan ciyaareed soo socday muddo ilaa iyo Ramadaanta qaybtiisii ugu dambeysay maanta ku qabatay galbeedka magaalada London gaar ahaan xaafadda Southall magacaygu waa Sayid Haaj Farax waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka hay'adda horumarinta isla markaana ah afhayeenka hay'adda runtii sida badaawaneyseen ciyaar aad u qurux badan baa meeshan ka dhacday ciyaartaasna waxa iskaga horimay halgan iyo kooxda sahan inkastoo aad iyo aad ciyaartu aad u xiiso badnayd 5 iyo 3 bay ku dhamaatay kooxda halgan ayay ku raacday iyo soo dhaweyn koobka waxaan ugu talagalnay bisha Ramadaan barakeysan runtii waqti dheer ay lagu qaadatay inaan koobkan soo qaadano waana ku guuleysanay aakhirkii insha Allah ciidana waxaan rajaynaynaa inaan koob qabano haddii alla idmo ilaahay hadduu noo suurtageliyo koobkaas oo ay ka soo qayb gali doonaan 8 kooxood qoratuurkiina waad arkaysaa si isu dhaceen kooxuhu waxa mahad gaar u soo jeedinaya gudoomiyaha oo isagu waqti aad u dheer ku bixiyay inuu koobkan u suurtoobo sida koobka ciidan isaguna waqti kale ayuu siiyay runtii waxaan kale oo mahad gaar u celinayaa TV Kalsan TV oo isaguna qayb lixaad ka qaatay aad baa mahadsantiin hay'adda horumarinta bulshada oo qabata koobka lagu dhigaa West London hadii la waxaan imika qabanay dadku soo arkayaan waxaan qabanay koobkii Ramadaanka koobka Ramadaanka waxa ka horeeyay koobkii degmooyinka London koobkii degmooyinka London waxa ka horeeyay koobkii iscafinta ummadda Soomaaliyeed ee uu baaqo soo jeediyay madaxweynaha Soomaaliya markii imika xagan aan joogno koobkii Ramadaanka ku soo gabagabeynay maanta insha Allah koobkii ciid ayaa noo qorsheysan inaan qabano bish maalinta Sabtida ee 10 bisha August ay tahay hadii alla idmo hay'adda horumarinta bulshada oo ah hay'ad ku howlan habka horumarinta sportiska dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta degan yihiin koobka oo loo yaqaan Super Cup markuu dhamaado 1 September baa noo qorsheysan in xalan ku qabano koobka waxaan noogu sii xigay hadii Ilaahay idmo koobka shanta Soomaaliyeed aan ku qaban doono maxay qoratuur aan u sameyn doono ama Djibouti aan ku qabano ama Soomaaliland aan ku qabano ama gobolka shanaad ee Soomaaliya aan ku qabano ama Soomaaliya Muqdisho aan ku qabano ama NFD near Kenya aan ku qabano marka Allah musta'aan qorshaha ayaa noo qorsheysan waan qoratuurina meeshaan ku qaban doono ama Djibouti ama Soomaaliland ama Soomaaliya runtii aad bay u dhaceen ciyaar fiican baa dhacay maanta laba kooxood bay ahaayeen waxaan aad uga helay golashii dhashay meesha inkastoo aan labadii gol horeeyay miskareeyay suucan bayna u dhaceen aad baan u taageeranay saacadku waan tumaynay insha Allah kuwa kale oo qaban doona Ramadaanta dambe insha Allah aad baan ugu faraxsanahay beenta maanta badalay kooxdana nin muddo ay tahaynay
wiig kasta waan ciyaarnay labadii sano ugu dambeysay xadka sanadkan ka ciyaarnaa laakiin maanta si fiican baan u kala hadnay god baan ku rinay inaan dib dambe nooga helin baan malaynaya insha Allah hadda salaan hadda maanta oo aan u dhignay koobkii ramadaanka aan soo qatimaynay maanta wuxuu ku baxay si mataqaanaa caaqaba leh waxaana ku mahadsan mataqaanaa ninkii bulshadan isu keenay oo la yiraahdo Cabdiqani iyo Faysal iyo Saciid iyo mataqaanaa Maxamed marka waxaan leeyahay sida iyo si ka fiican marka hore waxaan salaamayaa TV-ga Kalsan oo runtii aad bulshada Soomaalida meel kasta joogaanba isku dayanay warar aad u fiican u soo daayaan kale waxaan ka warbixinayaa koobkii maanta ka dhacay koobkii Ramadaanka maanta ka dhacay iskuulka Fatherstone School waxaa final isugu yimid labada kooxood ee kooxda Halgan iyo kooxda Sahan runtii ciyaar aad u fiican bay ahayd labada kooxood ciyaar fiican bay soo bandhigeen garlabada kamada qosla ayaa la yiri aakhirka ciyaartu waxay ku dhamaatay 3-2 ay ku badisay Halgan runtii waxaan oran karaa koob aad u adag baa runtii maalmihii ugu dambeeyay oo bisha Ramadaan ciyaaraha ee lagu qabto dalkan Ingiriiska gaar ahaan magaalada London khaas ahaan West London South Hall marka runtii aad baan uga helay naadir ciyaaraha ma sha Allah على كلسن TV لندن warkaad kala socoteen daawada Kalsan TV studio magaalada London waa naga inta warkan waxaan ku kulmi doono haddii waa barnaamij noqdo waxaan idinku dhaafayaa sida nabadgelyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh